ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in Iiraan gantaalo ku garaacayso Israa'iil waxayna sheegeen in nidaamka difaacu uu ka howleeyay sidii looga hortagi lahaa khataraha ka imanaya Iiraan waxa fariinta xadir leh oo telefoonka gacanta loo diray dadka ku nool meelaha aan amniga ahayn waxayna dadweynaha uga digayaan inay galaan meelaha la ilaalinayo oo ay ku sugnaadaan ilaa amar dambe wakaalada wararkeena UNGC ee la xiriirta ciidamada ilaalada kacaanka dawladda Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegtay in mawjado cusub oo gantaalo laga soo ridayo dalka Iiraan halka kooxda Xisbullah ee ka jirta dalka Lubnaan ay sidoo kale gantaalo ama diyaarado aan duuliye lahayn ay u dirayaan gobolada waqooyi ee Israa'iil sidoo kale ciidamada militariga ee Israa'iil ayaa sheegay inay qabteen gantaalo ay soo ridayso dawladda Islaamiga ee Iiraan gantaalahaas oo ku waabaristay arooryadii hore Israa'iil adeegyada gurmadka degdega ah ayaa sheegay in weeraradan gantaaluhu ay bartilmaameedsanayaan bartamaha Israa'iil ilaa hadda may soo sheegin mas'uuliyiinta Israa'iil wax khasaare oo ka dhashay weeraradaasi dawladda Israa'iil ayaa warbaahinteeda ku xakameynaysa inayna wax badan baahinin